موسبيحي إن ذي حرين ما إيه صحيحي والله حرية إمادي أسكرتان إيقاليحي مقال هذا ميل إيقاسيحي سوا مايا waa isla doonasho iyo kaliimo la isku soo aadiyay dhawaantii balse maaha eriya ka soo baxay afka madaxweyne Biixi iyo wax marar hore eriyaha Muuse Biixi yiri iyo heesa Sharma Bay la isku aadiyay la isku googooyay ugu dambeyn laga soo saaray kaliim balse run ahaantii marka hadda wato waa kaliim aad qosol badan ama adiga ahaantada baqirayso waxyaalo ka soo bixi lahaa madaxweyne Biixi marka aad u fiirsato dhaqamadiisa iyo sida uu caburinta iyo caga juglanta uga hayo cid kasta oo sita calanka buluuga heestan oo soo qaaday fanaanka dada yar ee aad ka soo shacbahay sanadihii u dambeeyay alfanaan Sharma Bay ayaa ahayd hees Soomaaliland ka dalbanayay in la xidhin marka uu yimaado gaar ahaan magaalada caasimadda Hargeysa balse ugu dambeyn waxa la soo qaatay kaliimkan oo madaxweyne Biixi mar hore khudbad u jeedinayay ka yidhi taasi oo uu sheegay dad xabsi loo taxaabayo amba dadka xamar tagaya oo la siinayno wax magaliya isla markaa ay ku soo laabtaan Hargeysa balse waxa la isla soo doontay heestii Sharma Bay iyo kaliimkaas labadaasi oo isla doonasho Ilaahay weeye si qurux badan isku yeeshay ugu dambeyn balse waxa ugu dambeyn markii soo qaatay kaliimadii oo soo dhigay baraha bulshada iyo barta YouTuberleyda gaar ahaan kuwa aan la arag codkooda oo qulal maqla kuwaasi oo ka shaqeysta wax kasta oo la soo dhigo baraha bulshada amba social media ahna dad soo raadiya kaliimada ururiyada kuwaasi oo maskaxaantada markaad u fiirsato aad oranayso waxay ku fiicnaayeen dad amba artisti amba gacantooda ka shaqeysta sida ay u ururinayaan waxyaalaha la soo dhigo social media fanaanka da'da yar alfanaan Sharma Bay ayaa sanadihii u dambeeyay soo shacbaxayay isagoo oo aan dhinac u dhaafin magaalada caasimadda ee Muqdisho marka laga hadlayo heesihiisa fankiisa wuxuu ka bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ilaa waqtigan dhex taagan yahay isla magaalada Muqdisho waxa uu noqday fanaanka sanadka oo shitay saadalkan ka arkaysaan waxay uu noqday fanaanka ugu wanaagsan sanadka balse waxay sanadahan la soo dhaafay amba sanadkii tagay isayeen alfanaan ilka casaqays kaasi oo ah fanaan hore oo raamka waqti badan soo ciyaarayay balse ugu dambeyn uu kala wareegay isla fanaanka da'da yar ee Sharma Bay shimbir ayuu ka horeeyay baa la yiri amba shimbir kici waxa fankii gabi ahaan amba heesiraamka kala baxay alfanaan Sharma Bay balse waxa toddobaadkan la soo dhaafay soo baxday heestan oo soo qaaday fanaanka da'da yar taasi oo Soomaaliland ka codsanayay oo u dhignay alow mudane Muuse Biixi inaad xidhan sax inaad shoogay kala kicinayso meelan saxdan emeysini taasi oo lagu soo aadiyay eriyaha maya iyo wala xidhaya iyo taasina macquul maaha kuwaas oo Muuse Biixi ku hadlay موسبيحي إن ذي حرين ما إيه صحيحي والله حرية إمادي أسكرتان إيقاليحي مقال هذا ميل إيقاسيحي سوا مايا dhab ahaantii sida aad u jeedaan waa kaliimo la isku aadiyay ambase waa kaliimo aad looga soo guray baraha bulshada kuwaas oo dhab ahaantii aaminsanahay qofkii sameeyay inuu ahaa qof waqti badan galiyay wali maskax badan balse waxaan leenahay saaxiib haddii aysan maskaxdaadu qurux badan tahay harow sii soco insha Allah wax jeesan doonta aba gaari doonta guusha aad leedahay fanaanka Sharma Bay wuxuu heesan qaaday isla toddobaadka dhexdiisa wuxuuna ku soo qaaday isla magaalada caasimadda ee Muqdisho taasi oo Soomaaliland madaxweyne Biixi kaga dalbanayay inuu san xirin aba hawsan xabsi ugu bedelin xorriyadda waqtigan haysto haddii uu soo aado magaalada Hargeysa isagoo oo waqtigaas hadaladiisa ka muuqatay amba heesiisa eriyadeedu inuu Hargeysa inuu yimaado aad u daneynay balse madaxweyne Biixi wax jawaab arintaas kama uusan bixin maadaama uu yahay madaxweyne looga bartay inuusan waxyaalaha yaryarka jawaab degdeg ah ka soo bixinin taasina waxay keentay in shacabka Soomaaliyeed iyaga aan dhexdooda ay isku turjumaan aba ay noqdaan Muuse Biixi iyo Sharma Bay inta u dhaxaysa taasi oo jawaabta Sharma Bay uu horeyntii waqti horeba soo qaadaan ugu horeyn waxay soo saareen inuu Muuse Biixi soo dhaweynayo balse waqti yar ka bacdi ay soo saareen in jawaabtu diidmo tahay waxay ugu dambeeyeen soo saareen kaliibadan oo ay isku aadiyeen taasi oo jawaab uga dhigayeen inuu Muuse Biixi diiday Sharma Bay imaashadiisa magaalada Hargeysa balse waa wax xaqiiqada runaantii ka fog saaxiibayaal markan aad xaqiiqada u agno Sharma Bay waa wiil Soomaaliyeed wana fanaan Soomaaliyeed sidaan wada ognahay fanaanintu ma kala lahaan waxda marka loo eego dhinaca fanka waayo waxa jiray fanaanin badan oo reer Soomaaliland oo tagay Muqdisho marka laga reebo qaar ku dhex milmay siyaasadda balse intooda badan wax xabsi looma geysan waxa ugu dambeeyay fanaanka Qamar Soogaani kaasi oo muddo dhow tagay magaalada caasimadda ee Muqdisho balse mu asla kulmin waqti yar oo xariga kadib wax xabsi oo daa'ima
waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay isaguna sidoo kale magaalada Hargeysa lagu xiray oo aad uga sii xafiif qaadanaya Sharma Boy Bilaal Bashaawi ama madaxweynaha TikTok kaasi oo muddo 2 bilood iyo saayid ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa kaasi oo dadka aad igu ooyeen gaar ahaan waalidiintiisa balse waxa isaga ka gaar u hayo lagu xiray waxay ahayd calan haw soo qaatay oo shaaha ku tulcabay waan ogtahay saaxiib markaad joogto Hargeysa inuu calanka Soomaaliya ka yahay wax weyn oo ka dhow yahay amba uu xaga in uga sageeyo Somaliland calanka Israel balse si kastaba haatee daawada adiga aragtidaada ka dhiibo maxay kula tahay muxuu Muuse Bixi ka oran doonaa arrintan tabcan madaxweyne Bixi wax looga bartay inuusan ka hadal meelaha gaarka ah marka laga reebo fagaarayaasha sidoo kale waxa looga bartay inuu aad uga adag yahay qadiyada iyo go'aan isku taagga Somaliland taasi oo siyaasiyiinta reer Somaliland iyo shacabka intooda badanba hay aad uga adag yihiin balse saaxiib anigu maanta ahaan oran maayo waxaan ahay qabiil amba qabyaalad amba reer Somaliland iyo Soomaaliya balse waxa shay kara oo kaliya inaan ahay qof Soomaaliyeed amba wiil Soomaaliyeed taasina bedelkeeda cidna u yeehan maayo jawaabta oo ka bixin doono Sharma Boy iyo madaxweyne Bixi oo ka bixin doonana waxba ka sii hordhici maayo balse Sharma Boy waxaan leenahay welcome to Hargeysa anoo Hargeysa ahaan ku soo dhaweynayna balse ma ogin wuxuu ka bixin doono madaxweynaha Somaliland jawaabtani inkastoo madaxweyne Bixi inuu ka bixin doono arrintan ay aad u adag tahay amba sahloobin balse saaxiibkay qiimaha low aragtidaada noo reeb muuqaalkana leegaree soo kale YouTube-keena Cabdalla Deeqsina subscribe waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan isku soo noqod wanaag